muddo 7 casho ah ee magaaladu ay ku jirtay fatahaaddan 30,000 oo guri iyo 100,000 oo qoys ay ka soo barakaceen oo qaarkood aan ku aragnay hadda meeshii aan tagnay aan ku booqonnay ceel jaalle waad aragtaan xaafadan waxa leedahay xawtaako dadkii oo dhan waa aragtaan waa wada qaxeen oo meel la joogi kara ma aha waxaan u sameynay guddi oo ay dawladdu ay ka qaadanayso qayb weyn hadduu ilaah yiraahdo inaan soo gaarno shacabkeenna Soomaaliyeed oo halkaan ku waxyeeloobay oo aan la qaybsanno dhibka iyo xanuunka ay ku jiraan insha Allah wax alla wixii karaan aan hayno oo awooda waa soo duldhigeennaa beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa iyaguna inay qayb weyn ka qaataan dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay degan yihiin hadday dibad iyo gudaha joogaanba waxaan ka codsanaynaa inay qayb weyn ka qaataan hawshan ay taakuleenta waalahooda ee ku dhibaatoobay fatahaaddan ay qayb weyn ka soo qaataan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalahan AMISOM halkan nala jooga sida ay qaybta weyn uga qaateen si dadka uga soo badbaadin lahaayeen fatahaaddan waa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha oo hadda aan soo marnay meeshii airportka ahayd inaan u sheegno inaan gacan ka geysan doonno si cid walba oo doonaysa inay gargaar u soo fidiso airportkan loo isticmaalo hadda airportku waa xiran yahay oo waxa looga keenaa gargaar dhanka Dhuusamareeb iyo Gurceel yaa looga keenaa marka si tan aan uga hortagno mustaqbalka dhibaatadan oo kala ah cid alle cidii rabto inay gargaar idin siiso inuu airportka furan yahay oo degdeg ah insha Allah wax alla wixii karaan keenna ah hil iyo hooba dawladdu waa idin garab taagan tahay wax alla wixii soo gaarsiin karana waa soo gaarsiinaynaa shacabka Soomaaliyeed waa ku boorinaynaa inay gacan weyn ka geystaan